الرحيم waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid dawlad goboleedka Jubbaland safiirka dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya soo waqti wafdi aad oo u sareeya oo qubaro badan ku jirta socdaalku wuxuu ku saabsanaa inay kormeer iyo qiimeyn ku sameeyaan garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Kismaayo isagii qubaradiisa soo dhaweynay wadahadal rasmi ah la galnay anigii guddiga dawlad goboleedka Jubbaland u magacawday aad iyo aad waan u dhameysanay reportka waa la qiimeeyay waa la kormeeray baahida la soo bandhigay aad iyo aad isku afgaranay waan guul soo yeetay dawlad goboleedka Jubbaland waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Imaaraadka Carabta safiirka Soomaaliya iyo howlaha Soomaaliya ee ka hayso gaar ahaan dawlad goboleedka Jubbaland wadaxaajoodkaasi waxaa ugu heliyay wasiirka gaadiidka cirkeed dhulka warfaafinta boosas gaarsiinta iyo la taliyaasha madaxweynaha iyo qubaro kale maareeyaha garoonka wadaxaajoodkeena waxa wadaxaajood mirdhal ah aad iyo aad ayaan isku afgaranay waana guuleysanay markaa dhameysanay ay hadartaan ayagoo nabad qaba dib ugu laabteen goobihii ay ka yimaadeen raxiim waa sidoo madaxweyne ku-xigeenka sheegay maanta waxaa noo yimid safiirka Imaaraadka iyo injineerra ilaa 7 qof ah waxayna diyaarinayeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo caalamiga ah dawlad goboleedka Jubbaland inay dhisaan way dhameysteen markii hadda ay dardaarmeen ayaga iyo madaxweyne ku-xigeenka oo anagana hogaaminayay ay dhameysteen ayna duuleen insha Allah hadii Ilaahay rahan waxaan rajaynaynaa dawladdan walaalahan ah Imaaraadka inay dhisi doonaan garoonka diyaaradaha heer caalami loo dhisi doono kaargooyadii diyaaradahan garadii runwayga oo dib loo dayactiray mid labaad oo hadii Ilaahay rahan in la sameeyo hadii loo baahdo la sameyn doono garoonka laga dhigi rabaa maadaama uu haysto dhul aad u ballaaran oo magaaladan uu ka soo fog ilaa 15 kilomitir oo u jira dhul ilaa iyo 40 koor markii la yiraahdo 10 kilomitir u haysto hadii Ilaahay rahan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo garoon caalami ah waynu ku mahadsan dawladaha walaalaha muslimka ee Imaaraadka Carabta insha Allah hadii Ilaahay rahan arrinkaas ayaa waxa guul u tahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Jubbaland hadii Ilaahay waa mahadsantiin